عليكم أصحاب جنالك ku xiran dhamaantiin waan salaamay xariijinayna caafimaad qabtaan fiidiyoda inta badan editing ma sameeyo inta badan recording caadi ah sameeyaa oo ana ka daawado YouTube ka walahi dad fara badan oo sida aniga camal u soo gudbiyo waxa laga yaabaa inay cajabsan tahay qofkan sida u soo gudbinayo camal waxay tahay isleedahay dad badan aad waxaa arkaan YouTube ka kaliya editing-kan iyo entertainment-iga iyo fiidiyoda quruxda badan oo aad lacagta fara badan loogu baxshay xitaa fiidiyowaad waxaa jira dadka markay making sameynayaan video making-ka dadka qaar lacag ku dhiibaan YouTube-leyda qaar videos ay u sameeyaan kuwa qaar views ay u helaan way u safraan waxa markaas bulshada ay aad ula cajabsan tahay markaas in la soo geliyo ay tahay way la socdaan marka way u safraan qofkaas way la kulmaan qarash fara badan oo kaga baxo maxaa la yidhahdaa si videos u sameeyaan deegaankay ku sameeyaan way duubaan ana hadda waxyaabahaas qarashkaas dhan ilaa hadda ada ay gaarsii karo laakiin yaa saas samee ada ay gaarsii karo adiga hadda fiirsana ay gaarsii karo ilaa hadda 100 subscribe ma gaarin ka waran laa ilaaha illa anta ayaan dhexdaas waxaa arkay wiil oo maxaa la yidhahdaa YouTube ku cusub horta waa nin diyaarsan waaye legend waaye waxaa arkay hal maalin gudaheed 24,000 subscribe oo ku helay rag dhalo waa ninkaas waxaa la yidhahdaa laakiin ase collaboration oo ku hela laakiin ay maanta macnaha qofkii garab taaganaan jirin marka waxaa rajeynayaa laakiin haddaan gacmaha isqabsano inaa xitaa 1k gaarsiiyadin 1kdii ay u adag xitaa 900 ay dhiman hadaa 100 gaaro 900 oo qofood kale ay dhiman saa 1k ku gaaro fiidiyodeedana waa aragtaa maalin walba recording aan sameynayo fiidiyo noocaanana haddaa YouTube gasho waa ka helaysaa dad oo aase rabaan maxaa la dhahaa noloshooda macnaha intay adiga qayb ka mid a noloshooda raba inay macnaha dadka u sharxaan trauma oo kale haddii lasoo kulmeen waxyaabahan cajiib gelin waxyaaba problem ku noqday in dadka wax u gudbiyaan dadka wax u sheegaan fiidiyada marka recording caadi ay sameeyaan way duubaan kadibna waxa maskaxdooda ka guuxaya dadka la wadaagaan marka fiidiyogeena maanta wuxuu ku saabsan yahay ibni aadanka waxaa la yidhaahdaa aadam wuxuu ahaa aabihii ibni aadanka u ahaa waa first man oo creator la abuuro xaawo umuna xaawaana waxa laga abuuray feertiisa laga abuuray kadib jannadii labadooda kusoo noolaayeen macnaa aadam keligiis jannada kuma nooleen xaawo kaligeedna jannada kuma nooleen labadoodaba jannay kusoo noolaayeen marka waxaa dhacday waxaa la amray in aysan taawanin geed laakiinse maxaa dhacay geedkii ayay taabteen waxayna qaateen shaydaanka amarkiisa markay marka sheekadaas ay dhacday wixii ka dambeeyey ubad ay dhashtay aadam janna maysan arag oo waxay kusoo koor marka waxay ku dhashteen meel jannada ka baxsan jannadii laga soo saaray aadam iyo xaawo marka jannada laga soo saaray aniga marka hadda markay problem arkayno oo isla heeno problemadana la kulmayna maxay tahay isdiin sababta macnaha isweydiin sababtoo adiga hadda janno kuma noolin sababta problemku arkiisa waxay tahay waa anaga waxaan nahay sidii malaayga oo kale malaayga waxaa loogu talagalay biyaha inuu ku noolaado maalintuu biyaha ka soo baxo oo banaanka yimaado wuxuu soo galay area ka baxsan ase nature ahaana ka baxsan siday u habaysan tahay mistakeska geli kartid markuu biyaha ku jiro mistakesku galayo markii banaanka uu joogo mistakeskiis isku mid maaha mistakeska macnaha banaanka ka dhacay iyo kuwa gudaha ka dhacay isku mid maaha kuwa markuu gudaha ku jiro malaayga uu biyaha dhex dabaalanayo noloshiisa meeshaas waxay ku tahay ase naftirkeeda halis way tahay oo dad oo xayawaan kale cunaa wuu jira laakiinse macnaha meesha loogu talagalay inuu ku noolaado ase hadduu rabo inuu koro ama inta loogu talagalay inuu ku noolaado biyahaas waa laakiinse 1 second ma noolaan karo hadduu biyaha kasoo baxo anaga marka waxaa nahay sidii malaayga oo kale waxaa ku noolnahay meel aan anagana loogu talagelin mistakeska inta waxaa la yidhaha waxyaabahan ku raali gelinaya maskaxda raali gelinaya
waxyaabaha caafimaadkaaga raali gelinaya. Waxaa la yidhi caafimaad darrada meeshaan waaye. Jannada caafimaad darra ma jirto fiiri. Ubad la'aanta meeshaan waaye. Maxaa la yidhaahdaa dhalinyar oday maxaa la yidhaahdaa doqonnimada meeshaan waaye. wax walba oo problem ah meeshaan waaye. Fadlan roobaa imaaday marka fiidiyowga inaan boos dhaho ay noqonaya roobka intuu ka dhamaanaya. Waa isku soo noqonaynaa. roobka iga joogsa waaye marka waan ku qasbanaaday inaan qolka soo galo kadib baa meesha ka dhamaystiro. waxay noo maraysaa rajeynayaa. waxaa muhiim ah in laga fikiro mar walbo maxaa dan ah noloshaan ibni aadanka ah. waqtiyo qofka haystaa u nool yahay. waqtiyada uu nool yahay maalmihiisa oo dhan macnaha waa waqti, waa days, waa week, waa years. macnaha qofka in laguma tiri macnaha waxaa lagu tiri karaa keliya waa days. waxaa lagu tiri karaa kasoo qabo minute, second minute, week, month, week waxaa waaye minute, second minute, days, weeks, months, years. macnaha centuries in lagu tiriyo qofka macquul maaha oo macnaha boqol sano se ku gaarto waxaa waaye qofka dhifkaa gaaro. marka laakiin years waa lagugu tiri karaa laakiin centuries laguguma tiri karo. oo qarniyo qofka ma noolaa karo 200, 300, 400 qof inuu gaaro macquul maaha. marka taas waa laga reebaa years baa lagu tiri karaa. marka nolosheena waxaa wanaagsan in aan annaga ka fikirno waxa dantaas hadda sheegay. malayga waxaa loogu talagalay inuu ku noolaado badda. haddii banaanka la keenana wuu dhimanayaa. annagana sidaas oo kalena meesha hadda aan ku noolnahay ma ahan meel aan ka tegayn, waa meel sahay ah waaye. meesha hadda ku noolnahay meel sahay ah waaye, meel laga tagaayo oo meesha dambe ee laga yimid loo noqonayo waaye. meeshaas marka dada sida saxda ah meesha quruxda badneed ay ka yimaadeen u laabo doono oo jannada ah ama wadada meeshan ku halaagsami doono oo heli doono waxyaabo kale oo oon u qalmin aakhiro oo ah naarta. sidaa darteed allah naga badbaadiyo naarta. waa mahadsantihiin. subscribe, like, share na iga hilmaamin.